نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمانتي وسلامتهين إلهي بانا مهد اسكاله سبحانه وتعالى نحريسي النبتقلينا وحنو ويدين إن رسوشيسي إيا أنبياديسي قارهاني محمد عليه الصلاة والسلام سلام كدب وبرنامجكي آخر الزمان توكس إن شاء الله تعالى مانتا لكتشر كان وحكوسا بسنان دونا لكتشر كوسابسن jinka UFOs oo loo yaqaan unidentified flying objects walxaha duula inaan la aqoonsan iyo hubka sida xun wax u gumaada ee nuclearka. waxaynu isdul taagi doonaa bal waxa ay yihiin UFO, jinka iyo hubka sida xun wax u gumaadaayay goorma ayuu bilaabmay, halkuu ka bilaabmay, weli ma la riday, yaase lagu tijaabiyey. su-aalahaasaynu insha allahu tacaala isdul taagi doonaa. lecturekanna runtii xiise gaara ayuu yeelan doonaa insha allahu tacaala oo wuxuu ka mid yahay qaybaha ma garanaysa ee barnaamijkeennii akhiru zaman talks. xidhiir toosana wuxuu la yeelan doonaa ma garanaysaa ee saacadda ama maalmaha ugu dambeeya ee adduunkan. haddaba saa wada ogsoon tihiin hubka sida xun wax u gumaada ee nuclearka waxa uu xisaabsan yahay one of the key ma garanaysaa developments in human history in uu yahay ma garanaysaa waxyaalaha ugu waaweyn ama ugu muhiimsan ee taariikhda bini-aadanka qayb ka mid a in uu yahay hubka sida xun wax u gumaada helitaankiisii. haddaba saa wada ogsoon tihiin 1945 dalka maraykanka waxa uu ku jiiday laba magaalo oo ka mid a kuwa jabaanka. labadaa magaalo oo la kala yidhaahdo Hiroshima iyo Nagasaki. bamkii ugu horreeyey ee noociisa ah oo loo yaqaanay atomic bomb. maraykanku haddaba bamkaa markii uu ku jiiday malaayiin dadaa dhintay, magaalooyinkiina dhulku la simay. jabaanka waxay ku noqotay naxdin aada u weyn iyo anfariir. sidoo kale isla markaa maadaama dagaalkii labaad lagu jiray ee caalamka, ruushkuna wuxuu ka qabsaday ama midowgii ma garanaysaa suufiyeedka wuxuu qabsaday xuduudo badan ama dhul badan oo uu jabaanku lahaa, taasoo iyaduna ku noqotay jabaanka lama filaan. arrimaha isbiirsaday ee naxdinta iyo anfariirka ku riday dalka jabaan waxay ku kaliftay inuu si dhaqso ah isku dhiibo jabaanku. anfariirkii uu ka qaaday ma garanaysaay hubkii lagu jiiday magaalada Nagasaki iyo Hiroshima, jabaanku waxay ku dhalisay saan horeba u sheegay in uu dhaqso isku dhiibo. haddaba hubkaa loo adeegsaday jabaanku ma ahayn markii ma garanaysaay mid hore caalamka uga dhacay, waxayna ahayd markii koowaad ee hub noocaasa laysku adeegsado, waxaana loo adeegsaday dalka jabaan. arrimahaasi isdhiibkii jabaanka kadib maraykanku muddo ma garanaysaay sanad ka yar wuxuu mar kale tijaabiyey laba bambo oo nooca loo yaqaano atomic bombka ah. howlgalkaasna maraykanku waagaa wuxuu ugu magac daray operation crossroads ama howlgalkii isgoysyada. isla haddaba waagaa ma garanaysaay maraykanku madaxweynihiisii Harry Truman oo ahaa madaxweynihii 33aad ee maraykanka soo mara ayaa wuxuu amar ku bixiyey in la badiyo soo saarka atomic bombka, sidoo kalena la raseeyo oo la ururiyo, isaga oo hoosta ka xariiqay markaa cadowga koowaad ee maraykanku ama xulafada maraykanku inuu hadda laga bilaabo yahay
ma garanaysaa isu tegii Soviyetka. arrintaasaa ruushkii ama isu tegii ma garanaysaa Soviyetka ee baaba'ay ku kaliftay in uu dhinaciisa isaguna raadiyo hubkan aan fariirka laga qaaday ee cid walba ka cabsi qabto. 1949 bishii ma garanaysaa 8/9/2020 ayaa waxaa ruushku ama isu tegii hore ee ma garanaysaa baaba'ay ee Soviyetka uu tijaabiyey the first atomic bomb oo iyagu leeyihiin. arrintaasi ama kaag iyo lama filaan ayay ku noqotay Maraykanka oo isagu naawulayay inauna muddo iminka iyo u dhow una ma garanaysaa midowgii ma garanaysaa Soviyetka una soo heli doonin hubka ma garanaysaa atomic bombka. hase noqotee nimankii Soviyetka waxaa u suurto gashay 4 sano gudahood marka loo eego taariikhdii Maraykanku uu helay in ay ku keenaan isla hubkii atomic bombka. sidoo kale 1950 ayaa waxaa bilaabmay Maraykanku inuu tijaabiyo the first hydrogen bomb oo ah nooc kale oo ma garanaysaa nuclear-ka ah. halkaasi ayaa waxaa ka bilaabmay ruushkuna inuu sidoo kale ama midowgii Soviyetka baaba'ay inuu tijaabiyo isaguna the first hydrogen bomb. isla waagaas waxaa markaa bilaabmay tartankii lagu jiray hubka sida xun wax u gumaada. halkaasi tartanku markuu ka bilaabmay labada awoodood iyo xulafooyinkoodu ay qaarkood gacanta ku dhigeen hubkaas ayaa waxaa soo ifbaxay waxaa lagu sheegay in ma garanaysaa uu dhulku galo waqti iska nabadoon, taas oo laga cabsi qabay haddii dagaal weyne dhaco in la isu adeegsado hubkaasina keliya una ma garanaysaa una noqonin mid khasaaro u geysta ma garanaysaa bini'aadamkoo keliya laakiin uu noqdo mid baabiiya ilbaxnimada bini'aadamku sheeganaya gebi ahaanteedba, sidoo kalena khatar weyn geliya dhulka aynu ku noolnahayba. cabsidaasi laga qabo isticmaalka hubka ayaa ah haddaba mid ilaa iyo maantadan taagan. hase noqotee markii haddaba ay bilaabantay tartanka lagu jiro hubkaas ayaa waxaa kale oo sidoo kale caddaymo la helay in ay bilaabantay walxaha duula eena la aqoonsan ee loo yaqaano UFO in lagu arko xurumaha Maraykanku uu ku sameynayay ma garanaysaa nuclear-ka, sidoo kalena uu ku tijaabinayay xurumaha haddaba Maraykanku uu ku sameynayay nuclear-ka iyo ma garanaysaa ama uu ku tijaabinayay ayaa waxaa lagu arkay walxaha duula. walxahan haddaba duula ee lagu arkay xurumaha ayaanan ahayn markii koowaad iyo markii labaad iyo markii saddexaad ee lagu arko ma garanaysaa xurumaha lagu sameeyo hubka sida xun wax u gumaada. arrintaasi ayaa markii dambe keentay oo dadka qaarkii ku dhalisay in ay bal xaqiiqooyinka wax ka raadiyaan. dadkii askartii Maraykanka ee ilaaliyaha ka ahayd xurumaha amba joogay waqtiyada aragtida walxaha duula lagu arkayay ayaa waxaa dhammaantood laga saxeexay wax la yidhaahdo non-disclosure statement, kaas oo sheegayay inaana sirtaasi ayna bannaanka u saari karin, haddii ay u saaraanna ay la kulmayaan severe punishment, ciqaab aada u daran. taasi ayaa ku kaliftay dad badan oo waagaa arkay markaa in ayna hadal. haddaba waxaa 2010 nin Robert Heston la yidhaahdo oo 40 sano oo noloshiisa ka mida ka shaqaynayay walxaha duula eena la arag xaqiijitaankooga oo buug uu qoray oo la yidhaahdo UFO and Nukes uu ku wareystay dad gaadhaya in ka badan 100 oo dhammaantood xaqiijinaya inay arkeen
ma garanaysaa walxaha duula eena la aqoonsan ee loogu magac daray UFOs, kuwaas oo ma garanaysaay badankooga lagu arkay xurumaha Mareykanka ee nuclearka lagu sameeyo ama lagu tijaabiyo, ayaa shirka jaraa'id ee 2010 waxay ku qabteen Washington. waxaa kala soo qayb galay dad badan oo ka mid ahaa ma garanaysaa askartii waagaa aragtay ee hore looga saxeexay disclosure-rada non disclosure statement-ka hore looga saxeexay, kuwaas oo siday u muuqato waqtigii laga saxeexay markaa uu dhammaaday. dhammaantood shirkaa jaraa'id ay halkaa ku qabteen, caalamka aad bay u baahiyeen, warbaahinta caalamkuna aad bay u baahisay, waxaana lagu xaqiijiyey in aragtida walxahani iyo inay wax ka jiraan. haddaba 1990 ayaa sidoo kale dokumentiyo sir ah oo laga helay dhinaca Soviyetka ayaa waxay sheegeen iyaguna in la arkay ma garanaysaay walxahani lagu arkay meelaha Soviyetka uu ku tijaabin jiray nuclearka, sidoo kalena uu ku samayn jiray, arrintaasoo noqotay mid cajiiba. sidoo kale haddaba waxaa dokumentiyadii la helay ee Mareykanka laga helay under ma garanaysaay freedom of information lagu helay waxay xaqiijinayaan flying discs ama ma garanaysaay flying saucerski mararkii ugu horreeyey in lagu arkay ma garanaysaay 1948 bishii 12 in lagu arkay Los Alamos Atomic Laboratory oo loogu magac daray meeshaasi inay tahay hooyadii ma garanaysaay nuclearka, halkaas oo ku taala gobolka Mareykanka ee New Mexico. haddaba sidoo kale waxaa macluumaad aad u sira oo xaqiijintiisuna ay adkaatay mar dambe soo dustay oo la helay 1945 bishii 7 in isla meeshii lagu tijaabiyey ma garanaysaa the first atomic bomb oo u dhow saxaaraha ma garanaysaa Alamogordo ee Mareykanka, in halkaa lafteedana lagu arkay alaabtani ma garanaysaa duusha in la aqoonsan. sidoo kale dadka kamayna warqabin hadday noqoto dadka Mareykanka ama kuwa Ruushka UFO-gan lagu arkay xurumaha militariga iyo meelaha ay ku tijaabinayaan inta jeer ay soo noqnoqdeen, sida weyn ay u soo noqnoqdeen, cid alliya cid u sheegtay ama caalamka u soo bandhigtay may jirin. laakiin xogta la helay ee la soo ururiyey ayaa waqti xaadirkan waxay tilmaamaysaa inay tahay mid lama rumaystaana oo aada u adag. ma garanaysaay fahankeedu sababta ay ugu soo noqnoqonayeen UFO-dani meelaha nuclearka iyo meelaha lagu tijaabinayaba, taasi oo iminka la sheegayo inay tira beel ahayd soo noqnoqodka ma garanaysaa UFO-gani ay kusoo noqnoqonayeen meelaha nuclearada lagu sameeyo ama lagu tijaabiyo. haddaba waxaa kale oo hoosta aan ka xariiqaynaa ma garanaysaay ujeedadii ugu weyneyd ee nuclearku wuxuu ahaa waaga inay helaan a very powerful bomb, welibana light weight, taas oo la saari karo diyaarad, sababtoo ma garanaysaay waqtiga 1950 ilaa 60 ma garanaysaay the primary ma garanaysaay delivery system ay haysteen ama nuclearka waxa qaadi karaay keliyaati wuxuu ahaa diyaarad. markaa waxay ka fikirayeen mar walba inay sameeyaan ma garanaysaay bambo dee aada u xoog weyn oo tii atomic bombkiina ka xoog weyn, laakiin ma garanaysaay aada aanan cuslayn oo diyaaradahoogu markaa strategic bomberska Mareykanku leeyahay uu qaadi kara markaa
marka haddiiba uu qaadi lahaa cadowga koowaad uu maraykanka hoosta ka xariiqdayna waxay ahayd ma garanaysaay isu tagii sofiyeetka. haddaba diyaaradaha maraykanka ee loo yaqaano strategic bombersku markay boqolaal ay qaadaan bamka ma garanaysaay hydrogen bamka ama atomic bamka markay qaadaan iyagoo arctic regionka maraya waxay saacado gudahood ku gaari karayeen ma garanaysaay ruushka, halkaasoo ay horseedi karayeen in dhammaantiiba la baabi'iyo. arrintii haddaba saacadaha qaadanaysay ruushka sofiyedkii laftigiisu isaguna boqolaal diyaaradood oo noocaasa ayuu diyaarsaday oo lacalla haddii lasoo ataago isagana uu u dirayo ma garanaysaay maraykanka, kuwaasoo iyaguna qaadanaya saacado inay maraykanka ku gaadhaan, halkaasoo iyaguna ay dhulka la simayaan maraykanka. haddaba arrimahaas isbiirbiirsaday ayaa markii dambe 1960kii haddaba arrintaasi waxay noqotay mid aan runtii raalli gelinin reer galbeedka iyo sofiyeedkiiba, iyagoo raadinayay ma garanaysaay alaabo iyo hub qaabkan imika kasii khatarsan. taasi ayaa waxay keentay markaa 1960kii maraykanku inuu tijaabiyo the first intercontinental plastic missile. waa misailkii ugu horreeyey ee iyagoo maraykanka iska jooga inta halkaa laga rido ruushka oo ku dhacayay ama meel aliya meeshii kale loo baahdo ayaa maraykanku tijaabiyey, taasi oo hadadeed keentay in laga maarmo ma garanaysaay strategic bomberska diyaaradihii 3 saacadood iyo 4 saacadood sii soconayay. waxaa bedelay in sawaariikh waaweyn oo plastic missile la samaysto, kuwaas oo qaarad u socdaalaya oo ma garanaysaay speedkooguna uu aad u sarreeyo oo sida lagu qiyaasay 15,000 oo mayl in ka badan saacaddii goynaya. halkaasoo diyaaradihii dhowrka saacadood sii soconayay ee dhowr saacadood kadib ma garanaysaay bambooyinkay wadeen ku sii daynayay dhulka ay baabiinayay. arrintii waxay noqotay inay kaba soo dhawaato oo 10 daqiiqo gudaheed ya ma garanaysaay nuclear ordaya oo madaxa ku saarayay. arrintii amiin meelaha 30 daqiiqo gudaheed buu kugu soo gaarayaa sawaariikhaas maraykanka laga soo rido. arrintii baa markii dambe waa laga sii gudbay 30 daqiiqo isna inaaf baa la yidhi, arrimo kalaan loo baahanay. marka tiibaa haddana waxay keentay waagii dambe in ma garanaysaay sofiyetkii iyo maraykankuba ay samaystaan waxa la yidhaahdo submarinadaas badda hoos quusa oo lagu raray ma garanaysaay nuclearka, kuwaas oo waddan walba uu dhigay meel waddanka kale u dhow oo baddiisa ah uu geeyey, halkaas oo ay keentay in nuclearkii haddiiba dagaal dhaco 10 daqiiqo gudaheed ma garanaysaay uu washington haysto ama moscow uu ku dhacayo. arrimahaas ayaa haddaba waxaa isweydiin mudan haddii intanoo dhan ay run tahay oo ma garanaysaay walxahan duula ee ma garanaysaay UFO-da la yidhaahdo lagu arki jiray ma garanaysaay xurumaha nuclearka lagu samaynayo, waay baa lagu arki jiray baa meesha taala. sababtu maxay ahayd ilbaxnimadan ma garanaysaay la yidhi inta bini-aadanka waa ka sarreysaa, maxay soo interested ugu ahayd meelaha nuclearka? waay ay u tegi jireen, maxay u monitor garayn jireen? ma dagaal inuu labada wadan ka dhex dhaco bay ilaalin jireen oo way u diidi jireen miyaa? maxaa jiray? su-aalahaasi iyo qaar kaloo badan waa su-aalaha calamku isweydiinaya, laakiin angalka inagu maanta waxaynu ka eegaynaa bal angal kale, meel kale aynu iska taagaynaa. intaa markaad haddaba ii haysaan waxaa xaqiiq mudan inaan noo soo noqonno jinku haddaba muxuu yahay.
jinku magacan jin la yidhaahdo waxaa lagu bixiyey baa layidhi liijtinaanihi min annaas, qarsoonida uu ka qarsoon yahay dadka. marka jin wax kala maahine waa kelimad carabiya oo macnaheedu waxay ka dhigan tahay invisible, macnaha waa kii qarsoonaa, waa wixii qarsoonaa, waa wixii qarsoonaa. okay, waxaan kaloon ognahay jinku inuu keliga qarsooneyn oo waxyaalo badan baa inaga qarsoon, oo malaa'igtii baa inaga qarsoon, oo bakteeriyada viruska baa inaga qarsoon yahay. laakiinse keliya inuuna qarsooneyn ee uu yahay makhluuq garaad qaba oo free will la haysta, iraadad makhluuq leh, wax dooran kara, wax la diidi kara. sidoo kale ilaahay ma garanaysaay uu garaad siiyey oo wax kala garan kara sida bini-aadanka inay yihiin baa inaga ilaahay inoo sheegay. ilaahay sidoo kale wuxuu inoo sheegay markii jinka uu abuurayey wa khalaqa aljaanna min maarijin min naar, jinka in laga abuuray naar dab, ma garanaysaay bilaa qiiqa. haddaba maadaama oon kasoo sheekeynay nuclearkii marxaladuhu soo maray, sidoo kalena aan kasoo sheekeynay walxahan duula inan la aqoonsan ee loogu magac daray UFOs, iyo in lagu arki jiray meelaha nuclearka lagu sameeyo laguna tijaabiyo, ayaa bal waxaan yar dul istaagaynaa jinka iyo waxa uu yahay iyo characteristiga iyo calaamadaha lagu yaqaan. jinku horta waxaa magacan loogu bixiyey baa laleeyahay liijtinaanihi min annaas, qarsoonida uu dadka ka qarsoon yahay. marka kelmadan jin waa carabi, waxayna ka dhigan tahay waa kii qarsoonaa. it means markaa invisible, jinku waa makhluuq qarsoon oo kuwii qarsoonaa unbay ka dhigan tahay. jinku ilaahay wuxuu sheegay isagiyo qoomkiisuba in iyagu ayna arkayaan min xaysi laa tarow, markaan inagoo arkayn iyagu inay si fiicanay noo arkaan ayuu ilaahay sidoo kale qur-aanka inagu sheegay. waxay culammadu markaa leeyihiin jinkan asalkiisii in dhulka ay joogi jiray isagoo madax u yahay ibliis. dhulka markaa ay joogi jireenna ay fasahaad badan ay sameeyeen, ilaahayna ku gaaloobeen. markaa ibliis iyo xoogaa yar oo keliya ayaa markaa ku hadhay in ay ilaahay aaminsanaadaan. ibliis iyo markaa intii ku hadhay ee tafiirtiisa ka mid ahayd samada ayaa la geeyey baa culammadu leeyihiin, intii kalena saasaa lagu baabiiyey. waana halka ay ka keeneen malaa'igtu inay yidhaahdaan ilaahayow ma bili-aadan baad abuuraysaa, ma garanaysaa dhulka fasahaadiya. culammada qaarkood baa markaa waxay leeyihiin malaa'igtu caalimulqeyb ma haynoo bili-aadanku wuxuu samayn doono may sii ogeyne, waxay ogaayeen tii jinkii ka horreeyey ee dhulka joogay fasaadkii ay ka sameeyeen dhulka ayay ogaayeen, taasayna ka hadlayeen bay culammada qaarkood leeyihiin. haddaba odaygii ibliis baa markii uu jannada sidaa ku yimiday ayaa ma garanaysaay markii nebi aadan calayhi salaatu wasalaam la abuuray ayuu halkaasuu ku gaaloobay. oo sababtii uu u gaaloobayna kilibkan ka horreeyey waxaynu ku sheegnay in ay tahay calaamadaha iyo dembiyada ugu waaweyn ee aakhiru samanka dhaca ee ilaahay ee lagaga fogaanaya in ay tahay kibirka iyo faanka ah qabiil hebel anigoo ah qabiilkaa anaa ka khatarsan, inaad ku sifoobayso ood gashay dembigii ibliis uu galay ee uu iskaga weynaysiiyey nebi aadan. arrimahaasna awalu samaan taariikhda bilowgeedii dhacay in ay yihiin arrimo malyaana oo dunidan maanta si fara badan uga dhaca, dhammaantoodna ilaahay lagaga fogaanayo. ayaa haddaba ibliis nacladii ha ku dhacdee markii haddaba uu gaaloobay ayaa culammadu waxaa leeyihiin markii nebi aadan iyo ibliisba dhulka loo soo dejiyey in ibliis intaynan nacdashu ku dhicin intii ka horreysay ee ka tafiirantay inay yihiin jinka aan la arag ee loo yaqaano kuwa reer guuraaga iyo qaarkood islaamka yihiin baleh. intii nacdashii kadib
ka tafiirantay waa nooc aanan diinta islaamka inay qaadato ama diinba qaataan ay aada ugu adag tahay oo aada uga shaqeeya xumaanta oo magacoogana loo yaqaano shaydaan shaydaankaasina macnihiisu wax kale maahina ay yahay kuwii xumaanta ka shaqaynayay bili-aadankana intooda xun ee xumaanta ka shaqaysa sidoo kale waxaa la idhaahdaa shaydaan. laba group baa markaa waxaa jira bili-aadana oo iyagu xumaanta uun ka shaqeeya oo shayaadiin lagu tilmaamay iyo shayaadiinta intooda xunxun jinka intooda xun ee shaydaanka ah inay wada shaqaystaan. ilaahay markaa mar uu abuuritaanka jinka haddana ka hadlayay waxaa yidhi wakhalaqa aljaana min maarijin min naar, jinka waxaanu ka abuurnay naar holcaysa oo bilaaqiiq ah. markaa qofkii kemistriga xoogaa wax ka yaqaana ayaa wuxuu baran karaa oo ogaan karaa incomplete and complete ma garanaysaay combustion in ay jiraan, oo incomplete combustion markuu dhaco carbon monoxide baa soo baxa, qiiq baa halkaa ka imanaya, laakiin complete combustionku in uu ma garanaysaay water vapor iyo carbon dioxide oo keliya taa soo baxaya, wax qiiq la yidhaahdana dabkaasi ma laha. dabka noocaas oo kale ah in laga abuuray bayna u badan tahay. hiidkaa laftigiisana intensitygiisu waa kala badan yahay ilaa iyo from red to yellow to blue buu gaadhaa. qayb ka mid a electromagnetic waveskana weeye, markaa waxay u badan tahay in qaybta redhka ka dambaysa makhluuqa jinka ah laga sameeyey, wallahu yaclam. ilaahay markaa waxa ila leeyahay soo kale oo jinka isagoo ka hadlaya suuratul-jin wainahu kaana rijaalun min al-insi yacuuduuna birijaalin min aljinni fasaadahum rahaqa. bili-aadanka in ka mid a oo raga iyo jinka in ka mid a oo raga in ay isu yeedhaan oo iskaashadaan, iskaashigoogaasna wax kale ayna ka soo bixin oonan ka ahayn inay ilaahay ay kusii gaaloobaan mooyaane. haddaba halkaa ilaahay waxaa inoo tilmaamay laba group oo qaar ka mid yihiin jinka aan dadkaa makhluuqa aan la arag, qaarna ka mid yihiin bili-aadankeenna. labadaba jandarkooga inaloo kala sheegay inay rag iyo rag yihiin, kuwaasina heshiis dhex maro buu ilaahay halkaa inoogu sheegay qur-aanka. mar kale arraxmaan isagoo ilaahay ugu dhaaranayo labadaa group ee heshiisku ka dhexeeya iyo ilaahay wuxuu yidhi sanafraqu lakum ayuha thaqlaan, wayna kala saari doonaa. haddaba maalintaa ballanta ilaahay imanayso iyo kala saaritaanka ka hadli mayno, laakiin waxaan yar dul istaagaynaa in labadaa group jiraan, ilaahayna ballan qaaday inaa kala saaro. sidoo kale waxaa dul istaagaynaa bal awoodaha ay leeyihiin jinka iyo capabilitieskooga ilaahay waxma inooga sheegay. ilaahay subxaana wa tacaala suuratu naml waxaa ku sheegay in nebi saleymaan markii uu yidhi kursigii kuwinsheba ama saba ee yamanta yaallay yaa ii keenaya, waxaa hadlay qaala alcirfiidu min aljin, cirfiid oo jinka ka mid ahaabaa hadlay. markaasuu wuxuu yidhi anaa aatiika bihi qabla an taquuma min maqaamik, kursiga intaanad ka kicin anaa nebi saleymaanoo kuu keenaya. arrintaas waa arrin cajiiba, waxaa ku toosaysaa jinku sida uu awood ugu leeyahay in uu travel ku samayn karo between time and space, oo shay intee culayskiisu leegyahay oo carshigaa laga yaabo inuu dhowr tan ahaa culayskiisu, in uu ma garanaysaayey oo from yamanta ilaa iyo juurasalaam uu intuuna nebi saleymaan kursigaba ka kicin uu awood u lahaa inuu soo qaado. that means haddana in kursigaa weyn oo shrink uu ku samaynayo aqoon ilaahay siiyey jinka. markaa hadhow toole markaa uu keenana uu dib u weynaanayo markaa kursiga. sidoo kale tartankaa speedka ee halkaa ilaahay ma garanaysaa inagu tusay ee nebi saleymaan maamulkiisii dhex maray oo jinkuna uu qayb ka qaadanayay, waxaa ku jiray qaala aladii cindahu cilmun min alkitaab. ilaahay halkaa kitaabkaa inooma sheegin subxaana wa tacaala, inoomana sheegin qofkaas
qofku ahaa, laakiin wuxuu inoo cad kii kitaabka aan barnay ee wax ka ogaa ayaa wuxuu nebi saleymaan ku yidhi anaa aatiika bihi, nebi saleymaanow anaa kursigaa kuu keenaya isaga ah qabla an yartadda ilayka darafuk, intaana ilgabirhsigaa kuma soo noqon baan keenayaa buu ku yidhi. xaqiiqdiina isagaa guulaystay oo kii baa keenay markaa muxuu ahaayey kitaabka wax laga baray baa keenay, cirfiid ma keenin, kii baa u keenay ma garanaysaayey carshigii. isaga laftigiisu halkaa wuxuu ilaahay nooga caddaynayaa jinkoo keliya hata inaana aqoontaan ahayn, ciddii ilaahay kitaabka uu isagu og yahay uu sheegay uu wax ka baray in ay awood u helayso wakhtiga maanta aan nool lahayn in ay ma garanaysaayey between time and space iyo speed aada u sarreeya alaabo ama walxa ku socda inay samayn karaan. waxaan usoo noqonaynaa markaa waxaa laleeyahay UFO dani waa alien. okay, alienta still ma aragno, that applies to the jin as well, ma aragno. jinku waa tegaa samada, that means Jupiter iyo Mars iyo dhulkaasoo dhan waa aadaa. iyagaana qur-aanka inoo caddaynayo ma garanaysaay samadaan noo bixi jirnay, waxbaan soo dhegaysan jirnay jinkoo leh, laakiin hadda ma soo dhegaysan karno. oo haddii aan tegno waxaan la kulannaa ma garanaysaay shihaaban rasada baana lagu soo daayaa ayay jinkii leeyihiin ma garanaysaa. marka culammada qaarkood baa waxay yidhahdeen jinku markuu waktigan iminka baxo intaa ma garanaysaay group isku kaxaystaan, markaa kooga hore samada tago war soo maqlo shihaab baa lagu soo ridaa, laakiin shihaabkaa intayna ka dhicin hadalkuu iska soo horreysiiyaa, ku kaloo dhexda fadhiya qaada, kii kalaa haddana soo gudbiya ilaa ciddii dirsatay u shaqaynayeen au warkay ku soo gaadho. warkaas oo saa nebigeennuuna sheegay qofkaasi markaa ciddaa la soo gaadhsiiyey sidii ay ugu tala gashay inay uga faa'iidaysato ayay uga faa'iidaysataa. bointkaa markaa wuxuu yahay nimankan jinka ilaahay wuxuu inoo sheegay in ay jiraan dad bini aadana oo ay ka dhexeeyaan ma garanaysaay iskaashi. sidoo kale waxaa la ogyahay haddaad baadhitaan yar aada u ma garanaysaay samayso dhammaan nimanka infekshanada ugu waaweyn ee caalamka sida rokodada iyo ma garanaysaay dhugniyeerka iyo waxaan oo dhan sameeyey, dhammaantood waxay sameeyaan arrimo ilaahay aada looga fogaanayo oo lidi ku ah, arrimo ma garanaysaay jinka lagu caabudayo oo uu jinku u diray. qaarkood waxay sameeyaan wax la idhaahdo sexual orgy oo boqol qof inta meel isugu keenaan baa la isu fuulfuulaa si qayra ma garanaysaay caqliya. waxyaala intaa ka waaweynna waa sameeyaan. marka niman waxa weeye markay arrimaha galayaan waxay sameeyaan si alliya sidii jinka loo biliis garayn lahaa ee loo marxabaysiin lahaa. kadibna jinku waxa uu keenaa in xoogaa ka mida teknolojiyadda ilaahay baray ay wax baraan. marka waxaan eegaynaa nimankan UFO la leeyahay ama alianka mar walba lagu arki jiray laha lugniyarka lagu sameeyo, sababtu inay tahay inay yihiin kuwaasi jin ka caawinayay nimanka reer galbeedka iyo suufiyeedkiiba sida loo sameeyo lugniyarka. halka markaa ay weli raadinayaan ma garanaysaay ninka Robert Heston la idhaahdo niman kale oo badanka ma garanaysaay reer galbeedi ay leeyihiin ilbaxnimo kale oo inaga horreysay oo nooc kala oo dad kale oo jirto maalin maalmaha ka mida waan gaadhaynaayo maalin maalmaha ka mida wayna qaadayaanoo waxaan ku noolaan doonaa magaalo kale oo ama Mars baan tegi doonaayo. waxaasoo dhan waa ballanqaadkii ilaahay sheegay ee uu shaydaanka lagu yidhi ibliis u sato dheeree oo ma garanaysaay hibilooyin aan xaqiiqoobin ugu sheekeen tii uun weeyaane. laakiin xaqiiqda waxaa tahay makhluuq inuu jiro intelligent being ah oo garaad leh oo ma garanaysaay aan la arag caalamkan innagana aynuu naqaano jin.
reer galbeedkuna waxyaalo badan ugu yeedhaan ghost spirit ma garanaysaay alien UFO marka intaasba wuu soo gelayaa kuwogan gooskaa iyo ma garanaysaay spiritku waa qarinka qofka iyo qarinka qofkii dhintay oo haray oo ama meeshuu ku noolaan jiray ama qabrigiisii ama guriguu joogi jiray jooga kuwogan very advanceka ana waa kuwa qur-aanku inoo sheegay oo waa kuwa cirfiidka iyo kuwa kasii waaweyn wey oo technolojiyadoodu ay ma garanaysaay ama between time and space travelka ay samaynayaani uu yahay mid ma garanaysaay aynanu qiyaasi karin halkaas waxa ka cad speedkan maanta laysu eryanayo caalamka le ma garanaysaay hubka maalinta ka dambeeya hubkii aada hore u taqaanay uu noqonayo bik imikana ma garanaysaay sabmaarinadii iyo waxaasi iyo intercontinental missilekii ay bik noqdeen oo hypersonic weapon uu soo baxay codkiisaba ka dheeraynaya oo dhawaqa codka ka dheeraynaya oo ilbiriqsiya gudahood ma garanaysaay kugu baabiinaya arrimahaasi inay xidhiidh la leeyihiin jinkuna inuu kaalin weyn kaga jiro maalmaha ugu dambeeya ee caalamka sidii uu bini-aadanka inta uu ma garanaysaay inuu halleeyo rabo uu ugu samayn lahaa awoodo ay caalamka ku cabsi geliyaan kuna qabsadaan dadkaasna waxaa number kow ka ah dowladaha waaweyn ee yajuuj iyo maajuuj ay haystaan ama ay u gargaaraan dowladahaas oo uu ku shaqaysanayo dajaal oo weli raadinaya isagoo jinkaasi inuu adeegsado raba qalab iyo casri uu bini-aadanka meel wal uu joogo uu ku kontarooli karo barnaamijkan intaan barnaamij lamida ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa fii amaan illaah iyo inaynu isla ogaano jinku inuu yahay kani la raadinayo kani intelligentka ah kani UFO lagu tilmaamayo kani alienka lagu tilmaamayo kani ma garanaysaay reer galbeedka iyo dowladaha horumarayba ka caawinaya sidii u samaysan lahaayeen hubka sida xun wax u gumaada